السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلنيرة ديارتي نعم لنا. أيه. يا محمد أنت. أدري عن صدق كله. أصدق. Social distance هو. أوكي. الديار متى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. madaxweynayaasha bahda saxaafadda shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh munaasabadan waxay ku saabsan tahay waxay daba socotaa munaasabadeena xalay murashaxiinta iyo dadka waxgaradka Soomaaliyeed dhammaan siyaasiyiintu waxay arkaan marxalad khatarteeda la dalku inuu marayo oo keeni karta xasilooni darro taasna ay sababayso doorashadii ilaa hadda aan laga heshiinin ilaa haddana ay u muuqato in mataqaanaa institutionada waqtigooda dhamaada ay rabaan inay kororsi aan sharci ahayn oo keeni kara xasilooni darro ay sameeyaan taasna hadda waxaa bilaabatay in la arko saansaanteeda xumeed ciidanka qalabka sida inay ku qaybsamaan marka koow waxaan rabnaa taliyihii booliska ee gobolka Banaadir Saadiq John raalli haleega ahdo magac kale aad uma aqaano laakiin waan rajeynaa in magacaas la wada fahmaayo tilaabta uu qaado runtii waa tilaab aad aan u soo dhaweynayno muujinaysa xilkasnimo dareen muwaadinimo iyo mas'uuliyadeed ayna tahay saraakiisha kale inay raacaan arrintaas maxaa yeelay in ciidanka loo isticmaalo in xukun lagu boobo ama xukun sharci darro lagu haysto waa arrin aan ka digayno waana bilowdeen marka aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa Ra'iisul Xasan Cali Khayre bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweyne ma santahay horaan uga hadalnay dalkan xaaladda uu ku sugan yahay waxaan ka dignay inaan la imaan meesha maanta la taagan yahay oo ah inuu dalku god ku sii dhacayo oo ka mas'uul yahay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waqti horaan sheegnay in muddo kordhinto ama fikirka muddo kordhin ama xukun isku dhajin ama ciidan isticmaalid iyadoon sharci ahayn inay dalkan dib u dhac weyn geenayso iyadoo madaxdii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku ay fadhiyaan inta aanan muddo xileedkiisu dhamaan madaxweynaha xilkiisu dhamaaday hadda ayuu gogoshii dhuusamareeb ka soo istaagay adduunyada ayaa dib u soo yaglaashay markuu marar badan isku dayay muddo kordhin ama madaxweynayaal weeraro ama madax kale weeraro ama waa ciidan isticmaalo oo aan niri xikmadda soo hartay waa ciidan kaliya aan ka dignay ayaa adduunyadu waxay ku guuleysatay inay mar kale villa Soomaaliya ka soo kaxayso isagii oo teendhada afasyooni Soomaali isugu keentay markii isagu uu ku fashilmay shaqadii kaliya oo qaranku ka rabay tiina iyadoo la fadhiyo ayuu sida aad marxaatay ka tihiin ka tagay maanta waxa ay maraysaa in ciidankii Soomaaliyeed ay ku kala qaybsamaan damaca madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxaan rabaa marka saddex fariimood inaan halkan ka diro fariinta koowaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii fahamkiisu liitay meesha madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu dalkan ku waday marxaati waxa kuugu filan meesha hadda la taagan yahay qof walba Soomaali ah inuu aqbala waayo maanta dariiqa uu madaxweyne farmaajo xilkiisu dhamaaday dalkan ku wado god buu ku wadaa waa inaan hadda ka sii dignaa taariikh baa isqoraysa oo maanta isfasiraysa labo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliye Saadiq oo garaawsaday in la soo gaaray waqtigii uu shacabka iyo dalkiisa u helin lahaa oo fahmay inaan la ogolaan in xildhibaanada la caburiyo inaan muddo kordhin lagu sameyn baarlamaan isagaba waqtigiisu dhamaaday inaan ciidan ummadda Soomaaliyeed lagu caburin taliye Saadiq wuxuu muujiyay tusaale ay mudan tahay in dhammaan ciidamada kale ay ku daydaan dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidanka ah oo aniga i garanaya oo la soo shaqeeyay oo ahaa laf dhabarkii dib u habeynta ciidanka oo u sahlay in mid walba uu mushaarkiisu qaato
oo u sahlay in ciidanka dib habeen lagu sameeyo ma idinkugu samaynayn dalkana habeen iyo maalin ugama shaqaynayn inaad aniga soo weerartaan ma u samaynayn inaad dalka dumisaan ma u samaynayn in waqtigiisu dhammaaday oo raba inuu xukun joogo diidanna inuu doorasho galo inaad aqbashaan taliya saadaq ayaa idinkugu filan tusaale waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan u sheego nin waqtigiisu ka dhammaaday amarkiisa haddii aad raacdo oo aad khalad ku gasho dambiilaad tahay waana lagaa daba imaanayaaye maantaad fursad haysataaye maanta fursaddaas ka faa'iidayso waxaan rabaa inaan u sheego beesha caalamka marar badan ayay nagu soo celceliyeen oo yiraahdeen waxaan ka shaqaynaynaa doorasho haddii madaxdii dawlad goboleedyada oo halkan fadhida uu madaxweynihii xilkiisu dhammaaday teendhadii ka dhaqaaqay kadibna uu u yeertay baarlamaan waqtigiisu dhammaaday si uu muddo kordhis u helo haddii aad tusaale u baahnaydeen tusaalihii waad haysataan macnaheedu waxay tahay maalgelintii Soomaaliya aad ku samayseen mid amni mid dhaqaale waa inaad fahamtaan in dalka dhaqaalihiisu hoos u socdo amnigu hoos u socdo adduunyadii idinka aad ka sii kala jeesan rabtaan ummadii niyad xumo ay ku jirto hal qofna uu mas'uul ka yahay waa ninka xilkiisu dhammaaday doorashana aan rabana inuu xukun qori ku haysto taariikhda qoraysa taariikhdu waxay qoraysaa qofna xukun xoog kuma haysan karo xukun qofna xoog kuma haysan karo waa ognahay farmaajo inaanu dalkan xoog ku haysan karin waxaanan ogeyn waxa uu dalka ka hadlaynayo maxay la eg tahay cidda la raba inay hor istaagtana waa annaga sidaas daraadeed waxaan leenahay beesha caalamka waqtigii dhinacyada la fiirinayo waa soo dhamaatay hal nin baa khaldan dalka ha laga qabto ummadana waa in laga badbaadiyaa shacabka Soomaaliyeed 30 sano oo khibrad ahaan leenahay aan ka faa'iideysano tusaalahaas dibna yaanan ugu noqonin waa mahadsantiin bismillahi rahmaani rahiim waa mahadsanyihiin saaxiibaday murashaxiinta madaxweynayaashii hore reer wasaarihii hore runtii xaaladda dalka maanta ay marayso ayadaa isfasirayso isku hadlaysa in annaga wax badan ka sheegna uma baahni laakiin waxa cad waxay tahay in maanta waxa kala qaybsan ay yihiin ciidankii xoogga dalka kuwoodii qalabka siday kuwoodii diiday inay xildhibaanada jidadka ka xirtaan diiday inay ka qayb galaan caburinta siyaasadeed xilkii laga qaaday loo magacaabay kuwo kaloo la isleeyahay shaqadii ay qaba lahaayeen ama lagu qabsan lahaa ama kuwii hore ay diideen ay qabanayaan horta kuwa loo magacaabay waxaan leeyahay waxa la in rabo waa in la adeegsado shaqo foolxuna la in dirsado waan ognahay ninka lagu bedelay saadaq in hadda teleefankiisa Fahad iyo Farmaajo 4 saac ay ku jiraan oo ay leeyihiin wax kasta annaga ku siinayna waxaan ku sheegayaa Fahad iyo Farmaajo waqtigoodii waa dhamaaday adduunkana dambiilayaal ka yihiin waa la socotaan oo safiirkii hore Mareykanka ee laga bedelay dalkana ka hadlay waxa uu Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ay dalka ku hayaan safiir hore wuxuu sheegana midka jooga waa la qabaa dawladdiisana way qabtaa waa ina ogaatiin marka yaan lagu lugoynin meel waa ka bariyay waxa lagu siinayo horta waa ina ka digtoonaataa waxaan rabaa inaan la hadlo saraakiisha kale ciidanka ee xoogga dalka oo ugu horeeya taliyaha in uu fahmo meesha loo socdo inuu fahmaana filaya meesha loo socdo inuu fahmo oo uu kuwaana qaato oo intay saxariif fandhaal dhicin oo Farmaajo xil ka qaadin saraakiil badan oo ka qaadi doona inay ayaga isgartaan si sharaf iyo karaamo leh ay dadkooda ku soo dhex istaagaan oo ay dalkooda ugu hiliyaan ayagana aan ka rajaynayna Farmaajo ani agteyda saaxiibaday raali iga ahaadaan waa hogaamiye kooxeed sababtoo ah madaxweynaadkiisii waa dhamaaday filla Soomaaliyana asoo hogaamiye kooxeed uu dhex fadhiya filla Soomaaliyana waa la ogyahay hogaamiye kooxeedii waa dhex fadhi jireen wax cusub maaha ayagoo asaga ka ciidan badan ka qabiil badan ka awood badan dhex fadhi jireen laakiin madaxweyne ma aysan ahaa jirin ayagoo xataa sheeganayo oo wad ogtiin taariikhda marka annaga hogaamiye kooxeedaan u naqaanaa
waxaan rabaa marka inaan sheego hogaami kooxeed wuxuu samaynayo hantidiinuu dhacaya dadkiina waxgaradka iyo taarget garaynaya oo doonanaya dadkiina oo isleeyahay oo ku tuunsan yahay inay wax diidi karaan iyo dagaal ku qaadaya hadduu oday dhaqan yahay hadduu ganacsado yahay hadduu siyaasi yahay dalku wuxuu geliyey hubanti la'aan maanta waa ognahay dhul lama gado sababtoo ah dadku waxay ogyihiin inaas meelay tagaan isa aqoonin bangiyadii investmentiga ama dadka deymaha bixinaya ma bixiyaan sababtoo ah ma garanayaan masiirka dalka meeshuu jiro ganacsigii ma socdo sababtoo ah qof kastoo maalgashi samaynaysa waa inay ogtahay xaaladda siyaasadeed inay tahay mid degan oo meelay tagta ay jirto wax kasta waa istaagsan yihiin dalka saa la socotiin moobaylada jidka la isaga dhacaa dukaamankaa loo dhacaa waxaasoo dhan waxaa keena infilaat alamni gacanka bax amniyaa la yidhahdaa fowdada dalka uu geliyey hogaamiye kooxeedka maxamed cabdulaahi farmaajo keenaya arrintaas ayada ah sidaas daraaddeed waxaan rabnaa ogaada nin qof walba mushkilada gurigiisa ugu imaanaysaa hadduu koostigiisa yar yahay hadduu dhibkiisa yar yahay waa mahadsan yahay taliyaha maanta diiday in uu ku dhaqaaqo arrintaas ayada ah kuwa kale oo intaa sameeyaana dhibaatada ay nooga furdaamaysa horta waa ina ogaatiin in asaga lamidoo tilaab qaada yaa dhibka farmaajo dalkan looga badbaadi karaa waxaan u baaqayaa taliyaha booliska ha qabyaaladaynin siyaasadda dan adiga kuuguma jirto dalkan uguma jirto haddaad isku daydo inaad tidhaahdo farmaajo qabyaalad ku difaac adigaa foolxumada farmaajo dadka u horseeday waxaan kaaga digayaa inaad siyaasadda qabyaaladayso ha qabyaaladaynin annagana nooma fiicna adigana kuuma fiicna sidaasoo kale yaan ciidanka la qabyaaladaynin yaan la dhihin kanna lama jiro ee kanaan ugu qabiilay hadda ha loo dhiibo meel ama kalaa maslaxaddeena wada waxaas dan kuma jiraan danna kuma jirto soomaalina uguma jirto annagana nooguma jirto deegaanka aan dhex taaganahayna uguma jirto maanta waxaa qormaysa taariikh ninkii siyaasiya dadkiisa iyo dalkiisa u hiiliyana way qoraysaa ninkii sargaale dadkiisa u hiiliyana way qoraysaa taariikhdana way kooban tahay waa maalmo waxaa laga yaabaa inaad ka shalayso go-aanaad qaadan lahayd maanta inaad beri ka shalayso inaad qaadan lahayd fursadda maanta haysataa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركا انتي سي معناه لهيد مهم كأهيد مدحدي مدحويني رئيس الوزراء هوري ومرشح عبد الرحمن عبد الشكور أيها الشيغان وربضن أنا اللي يمريبين لكن وحان ربا هالمد إن المهمة دسار وحمان تماشى لتاغية وماشى لغا هادلي ووضو الله صومري سياسيا اسكو دايني والعقل وهالشقايو يعني عقلك معقولك هالشقاية عقلك قلوع عيان وشقاينين وار انت يعني ليين كان يعني ليين wax kasta oo xumaan oo la sameey karay oo dalkan dagaal lagu geli karay maxamed cabdullaahi farmaajo waa soo sameeyey guryahooda dad ku dil kuwa kale غير sharci ku xirxir kuwa la doortay oo la magacaabay doorasho ku yimid raacday kuwa la magacaabay iskaba dhaaf ayaga waaba muxuu ahay ka sii fudud wax yani dalkan intaas oo dhan wayaan wax ka sii xun yaanay dhicin yaan la isdilin waxaasa lagu joogaa lagu waxaynaad inta hadda ay saaxiibada ay sheegeen oo dhan waxay ahayday maxamed cabdullaahi farmaajo walax uga dan lahay dagaal in lagu galo yaa tolhay inta la yiraahdo qoryaha la qaatay la dagaalamay waa ka adkaysanay dadka Soomaalida ka adkaystay ganacsatada ka adkaysatay shacabka ka adkaystay shabaaba ku farxay oo ku bulaalay oo u bogay waxa aan soo marnay horta muxuu ahay iyo dulqaadka laga muujiyay dadka Soomaaliyeed guud ahaan ayaa dulqaadkaasna ku mahadsan gaar ahaan magaalada Muqdisho dadka degan jidkan ka xir gabadha foolanaysa yaan isbitaalka la geeynin midda maxaan ku iraahdaa dhaawac ayaan la qaadin kii qarax ka dhacaa kii kale oo ka badbaada qaraxo ka sii carray xabad lagu dhufto yani muxuu ahay ma garanayno wax oo ku sifan waxaan rabaa marka meesha marka warka saakay taliya Saadiq John oo akhyaarta iga horreysay aad u shaqada warka meesha muhiimka ugu weyn oo kale waa maxay ciidanka qalabka sidaahay waxay mas'uul ka yihiin waxa kamid ah oo ugu horeeyo ilaalinta dastuurka ma aha kaliya cadawga qoryaha sita inay ilaalinayaan bas ma aha ee dastuurka jamhuuriyadda ee dawladnimadu ay ku dhisan tahay ee kala dambeyntu ay ku dhisan tahay ee raggan meesha jooga madax shalay soo aajiray madaxtinimada shalay fursadeeda siiyey ee maalintii dambe ka qaaday ee madaxweynihii naga dambeeyey farmaajo xilka dhamaaday fursadda sii dastuurkaas waay buuggaas yarka ah ee buluuga waay buuggii haddii markaan iska diidno ku dhaqmi mayna haddaan dhahno haddee qaanuunkii oo jiqda maahano oo qof walba qofku ku xoog badan yahay haddii ha cuna ahayday
taas waa waxa aan ka adkaysan oo diinay saadiq john saaka hadalkiis waa dhegeysateen wuxuu dhahay dastuurka ha lagu dhaqmo 4 sanaba maraa lees dooro jiray ha lees doorto war xun ma sheegin ninkaas qof ma cayn qof ma aflagaadeen qof aan dilaa ma dhihin qof kuma duulin wuxuu dhahay war dalkan dastuuruu leeyahay dastuurka ha lagu dhaqmo 4 sanaba lees dooro jiray ha lees doorto waqtigii waa dhammaaday baarlamankan meesha fadhiya waqtigii waa ka dhammaaday ma kordhin karo wada hadalkii iyo teendhadii ha loo noqdo meeshaasaa maslaxaddu jirtaaye taasaan garab joognaa waxa dastuurka khilaafsan oo dhan waa diidannahay mas-uuliyaddii la saaray oo uu u dhaarto kutubka qur-aan gacanta u saaray ka soo baxay maanta bini aadan waayo shalay ma qaldamay daraad ma qaldamay tii karo ma qaldamay laakiin waxa u dambeeyey meyd waa maxaa u dambeeyey kala sii sida soo ma warkiisii maanta u dambeeyey annagaan ka soo qaadaynaa ninkaasi dastuurka difaaciisa maanta hadduu dhintana u dhimana haddii la xirana oo u xisma hadduu ku guulaysana uu ku ammaanaan doona haddii alla yidhaah dadka soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaay intaasaa laga rabaa qof yay la dagaalin qof yay dilin qof yay u hiilinin mid yay ka hiilinin bas buuggaas yarkaa oon ku heshiinay waa wixii aan ku heshiino wada dhiganay kaasaa haddii qof uu iska sii jooga haddii la leeyahay lafsadeeda waa fikir aan isku nimaado aan ka heshiino aan dhahno madaxweynaha la doortahay hadda kabacdi waa iska sii joogi karaa laakiin markasta maxamed cabdullaahi farmaajo noqomaya taas haddii lagu heshiiye xataa qaanuunka hore u shaqeeya gadaal uma shaqeeye markaas qofkii la doortay wixii ka dambeey haddaan dhahno boqoraan dooranay dalku waa boqortooyo muxuu ahay jaamac ama calasowa muxuu ahay boqor noo ah waa dhammaatay khalaas laakiin maku heshii karnaa ma isugu imaan karnaa ma isku ogaa karnaa aan baqanaba waa talo ragaa hore u yiri wixii lagu heshiiyaa dalkan ka soconaayo iyo wixii buugga ku qoran haddii wixii buugga ku qoran lagu kala ra'yi duwan ama la saxayna aan isku nimaado war aan ka heshiino war ha laga heshiiyo xilligii waa dhammaaday doorasho inay dhacday ahayd 4 sano waqti aan la haystay lama samaynin ma dhicin maanta ha laga heshiiyo bal waxa soo socda la samaynayo ninkii yiri gar allay leedahay ninkaas waa saxanya saraakiisha ciidanka qalabka sidana waxaan leenahay waajibka ladinka raba intaas waa wadadii ninkaasaa idiin iftiimiyey raaca wadadii ninkaasaa idiin iftiimiyey raaca dastuurka ha la dhowro mudaxilaadka ha la dhowro rabitaanka dadka soomaaliyeed ha la dhowro rabitaankooda lagu xukumaayey qasab laguma xukumaynine rabitaankooda ha lagu xukumo meeqa qoryo wadatoo qoryo la duufaysaa magaaladan xamar intaad joogteen soo martay oo soomaaliya ajnabiba leh meeshay ku dhammaadeen kulli waa la ogyahay maxamed cabdullaahi farmaajo ka noqo godkaas ha ku dhicin meel xun waaye waddadaas meel xunay ku dhammaataa ha aadin soo noqo teendhada la sheegaya ku soo noqo dhex fadhiiso dadku maxaa rabtiin aniga ra'yigaanaan qabaa idinku ra'yi miya dheh kala dood qancaso dadka boqoraan ahlay boqor ku qanci haddee lagaa qanco boqor noqo laakiin meeshaanaan meel villa soomaaliya waxay villo ku tahay oy magac ku leedahay inay tahay sharciyad degaankii madaxweynaha sharciga ah ee dalka gurigiisii waaye ee derbiyadan waxba kama duwana iyo geedahan meesha ku yaalla waxay ka duwantao gaara ma jiro gurinin degan yahay waa maanta guri madaxweyne degan yahay maaha wiilasha soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sidaa mar kale waxaan sidoo kale ammaanaynaa bogaadinaynaa ragga siyaasiyiinta ah ee mowqifkaas horay u qaata ayagana oo ay ugu horeeyaan labadaas dowlad goboleed ee jubbaland iyo maxaan ku irahdaa puntland ee mowqifka qaatay iyo dastuurka ma dhammaada haa bes dastuurka siduu faray hala yeelo aan ka heshiino mushkiladan noocan hore usoo dhacday inaanay mar dambe dhacayn inaan rabnaa horey loo socdana waa rabnaa annaguna intaasaan soo taagnayn waddadaas waa waddada loo soo dhammaa doono maanta meel fiican nabad ah shaxshax aan joognaa waddada waa noo furantaha aan qaadno annagoo daqaran dhiiggu naga da'ayo shaatigu naga jeejeexan yahay ceebaysan qoorta nalaga soo qabtay ee nala soo xeereeyey nala keenay yaanan waddada marin maantaon qurxannahay oon libisanahay nin walba taayigiis u xiran yahay waddada aan marno meel fiicanay ku dhammaataa maalin dhaweytaan waraysi idaacad siiyey waa sheegay waxaan dhahay villa soomaaliya lagu shiri jiray annagu waagaan joognana waa lagu shiri jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka meeshaasay ku shiri jireen 5 dowlad goboleed ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka meeshaa lagu shiri jiray hadda bishii sebtembaraa lagu shiraayay sanadkii hore
maanta waa laga soo tegay afisyoone ay joogtaa afisyoone waa dhul soomaaliyeed weli waa caasimadda jamhuuriyadda war waa la yaqaanaa waxaan horaa loo soo arkay maxamedow haddaad bofala fadhida adiga annagaa soo joognay waa la yaqaan meesha waxaas waddadaas mugga la soo galo meesha ku dhammaata waa la yaqaan berri kambaalayay ku dhammaanin waa ku celinaa mar kale maalin dhaweedna waa dhahay maanta meel fiican ay joogtaa dalkii soomaaliya caasimaddii jamhuuriyadda ay joogtaa villa soomaaliya iyo meeshii maqaamka lahayd waa ka timiday xero ciidanay maanta joogtaa iyo garoonka diyaara iyay ka bixin berri ee boorsooyinka annagoo sii xirxiranayno oo sii soconno jaakadaha sii dhuuqsanayn yaa nala arkin oo sii soconno warniyahaw dalka iyo dadka intaas kaama mudno uga tur bahdil iyo karaamo jab intaasa inuu gaaro dalkan ma mudno ummaddan sharaf iyo karaamay muujisay inay dimuqraadiyadda u taagan tahay muujisay baawarka inaan qori lagu gaari karin inay cod iyo sanduuq warqad lagu rido lagu gaari karay muujisay waa ku qanacday raalliyay ku ahayd maanta ha isku dayin inaad ka dhaadhicisid ma ka dhaadhacmaysee baawarka qoryaa lagu haysan karaa qofkii qorya badanaa haysanaayo hortaa jiraa soo waayey yaa hortaa jiraa soo waayey lagaa hub badnaay lagaa ciidan badnaay lagaa dad badnaay xataa taageero caalamiya lagaa badnaay war waxaasi waa soo shaqay waayeen waa inteed jirtaa dhaga ma leedahay qalbi wax xasuusta ma leedahay indha wax akhriyo oo rikoodhkii hore madaxtooyada dhexdeedu yaallaa sidii loo dhaqmi jiray arkiifyada xafiiskiisa hoosteeda ku taallay yaalliin wixii dalkan soo maray oo dhan ay ku xeraysan yihiin ma wiilish inta u yeeratay bal heshiiska noocaasa warka noocaasa shirka noocaasa wixii ka soo baxay iyo wixii laga dooda hallay tuso minitiska yaalla ma dhihi kartaa maxamed caqliga ha kuu soo noqdo caqliguna ha taliyo walaalowda ha taliso qoray ma talinaayo qoray inaanu talin dadkan qiimi badan u bixiyaan mana tali karo waxaan leeyahay wiilasha ciidamada khaasatan wiilka saakay saadiqaa lagugu bedelo la yidhi maxaa laguu sameeyey waryaa hooy farxaanow dhiiqaa lugaha laguu geliyo ha musqul god qodan oo wasakha ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacal iyo ha gelin waa wiil yaraa tahay mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor laa cimrigaaga ka dhibna haddii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro nimanaa ku jiree qolka dhiiqada ha la gelin nimaa ka baxay saake ka bax adigana ha gelin darajo ma aha maxamed cabdullaahi farmaajo iskamale darajada maxaan ku idhahday kii kale xuu ahay xijaar iskama leh darajada qaanuuna iska leh sharciyaa leh ay ku timaadaa ay ku jirtaa ay ku ixtiraaman tahay qof afkiis iyo rabitaankiis maaha darajada dalkan hore uu darajo kuu siiyey maanta meesha ay joogto meesheedii maaha ha ku dhumin waddadaas genaraal odowaa waa la leeyahay militarigaa lasoo dhaqaajinaa intaa laga keenaa kanaa laga keenaa genaraalow odowaayow wiilkeygiyow maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd maaha saadiq john waddada uu fura kuu fura waddo kale oo kuu furan ma jirto mid kastoo kalood qaado haddaad caamustad gurigaa gadaal u gasho xataa eedaysanaad tahay maanta waddada kuu furan inaad iscaddayso ood sheegto oo tiraa dastuurka jamhuuriyadda loo hoggaansamaa waaye karaamo iyo sharaf kaasay kugu jirtaa mid kale kuguma jirto dhammaan waa sida saraakiisha ciidamadao dhan waa sida aniga xijaar iyo fahad waxba la hadli maayo laakiin waddadaasaa u furan sarkaal kasta oo rajo iska qabo waddadaasaa u furan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta farxaan iyo odowaa iyo ku dar muxuu ahay xajaarkiisa iyo kulli iyo inta ka hoosayso dhanna waxaan leenahay u caqli celiya wiilashiinna dhaldhalaalku yaanu sirin shalaa lagu hodmaa ragga ku baaba'een ku magac beeleen ku karaamo waayeen ku sharaf beeleen war ha ku ceeboobina wiilashiinna u caqli celiya la hadla waddadaas qalloocan oo qaldan yaanay marin waa dhammaanteen waa wiilasheenna waa uga digaynaa waana uga caqli celinayna waana ka waaninayna intaas kadib waxaan rabaa inaan hadalkii macaay oo akhyaarta iga horreysay itir aan kusoo gabagabeeyo meesha loo dhammaa doono waa meeshaas bes inaan deg deg u tagno iyo annagoo nadiifa inaan tagno choice ama khiyaar ah waa leenahay khiyaarka kalena inaan daahno oo annagoo rifrifan aan tagno oo bahdilno karaamadii naga tagtay aan tagnane waa khiyaar kale ayadana
waana wax la kala dooran karo xumaanta ragaa dooran karo laakiin annaga tan wanaagsanaan doorannay ayadaan u taagannahay waxaan leenahay yaanan degdegin wakhtigu waa sii socdaa ha la isku yimaado ha la heshiiyo doorasho ha la aado dimuqraadiyadda ha la xoojiyo rabitaanka dadka soomaaliyeed ha la dhowro xukunka ilaahaa bixiya qofkii uu siiyaa leh qofkii kalena ma laha waddadii lagu maraayey oo lagu tegayana waddadaas la tilmaamay waaye taasaa furan waddo kaloo furan ma laha aad iyo aadaa umahadsan tihiin mar kale waxaan hambalyo u dirayaa saadaq waxaan hambalyo u dirayaa saraakiisha faraha badan ee la joogta ee la shaqaysay ee ilaahay hadda garbihiisa fadhida ee la qabta muxuu ahay ra'yigaas kuwa kalena waxaan ugu baaqayaa inay soo raacaan aad iyo aadaa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintii ha iska iloobin waa mahadsan yahay prime minister anagoo ku hadlaya dhammaan magacooda 12 abriil waa maalintii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waay waa u hambalyaynaynaa meel kastoo joogaan maanta waa maalintaas weyn oo macnaha leh oo maalintii ciidanka la aasaasay 71 sano miya 61 sano ay ka soo wareegtay waay booliiska horreey 61 sano ay ka soo wareegtay waay maalin weyn waay maalin taariikhi waay inaa maanta au qof walba yiraa maalintii hambalyada ciidamada ay ahayd ayaan aniguna u istaagay dastuurka inaan ilaaliyo waxaan ku dabaaldegnay ilaalinta iyo kor u haynta dastuurka dalka maalintaa dhihi lahaydeen waaye dhaha allah tawfiiqdaasna allah idin waafajiyo hambalyana waa idin leenahay adika iyo xaasaskiina iyo dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxay ahaayeen xubnaha mudug musharaxiinta sida madaxdii hore ee Soomaaliya waxay aad sheegeen inay aad u bogaadinayaan go'aankii uu qaatay taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir Saadq John iyaga oo sheegay in taliyaasha kale ugu baaqayaan inay iska casilaan oo ay sheegaan inaysan ka mid ahayn madaxweynaha talada haya go'aankiisa waa maasintii waxa kala socotaan bogga RTN Somali TV kulamo